awoodaha militari ee dalalka Itoobiya iyo Masar haddii ay dagaalamaan. khilaafka u dhaxeeya dalalka Masar iyo Itoobiya ee salka ku haya biyo xireenka weyn ee ay xukuumadda Addis Ababa ka dhisayso webiga Niil ayaa maalmihii dambe sii xoogaystay. Itoobiya ayaa 26 February si ku meel gaar ah u hakisay ka qaybgalka wadahadallo uu Mareykanka garwadeen ka ahaa oo ku aadanaa buuxinta iyo maamulka biyo xireenkaasi. waxa ayna codsatay in muddo dheeraad yaraanaya waqtiga lagu dhameystiri karo wadahadallada. Itoobiya ayaa u aragtay in Mareykanka aanu dhexdhexaad ka ahayn wadaxaajoodka uu la safan yahay dalka Masar sida ay sheegtay jaraa'idda Foreign Policy. Addis Ababa ayaa dhowr jeer ku goodisay inay difaacan doonto biyo xireenka ayna xaq u leedahay ka faa'iideysiga biyaha webiga. Arrintaasi uu saameyn ku yeelan karo biyaha ay Masar ka hesho webiga. hadda badan gobolkaasi shacabka dalka Masar oo ku dhow 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxa uu wargeyska Global Firepower ku qiyaasay in ay yihiin 43 milyan oo qof halka kuwa howlgalka hore ka geli kara ay yihiin 36 milyan oo qof. ciidanka militariga ee dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee Masar ayaa tiradooda waxa ay gaaraysaa Global Firepower ku sheegtay in agabka ay haystaan uu guud ahaan gaaraya 316. ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo ah kuwa qaada diyaaradda kuwaas oo ay adag tahay in la helo dal kale oo Afrikaan ah oo haysta. waxa ay xukuumadda Qaahiro haysataa oo kale 2 markab oo ah kuwa dagaalka, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda muquurta, 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha iyo 30 maraakiib oo nooca badda ku aasa miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aaso. militariga Masar ayaa sanadkiiba waxaa lagu qarash gareeyaa lacag dhan 3 bilyan oo doolarka Mareykanka waxaana qayb ahaan lacagtaasi bixiya dowladda Mareykanka. ciidanka cirka ee Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo ah nooca dagaalka, 59 diyaaradaha militariga ee xamuulka qaada, 387 oo ah diyaaradaha lagu tababaro ciidamada cirka, 294 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarka loo yaqaano, iyo 81 oo ah helikobtarada wax weerara. dhanka kale awoodaha militari ee dalka Itoobiya oo kamid ah dalalka Geeska Afrika ugu awooda badan ayaa tirada dadka ku nool wadankaasi waxa ay gaarayaan 180 milyan oo ruux. dadka awoodi kara inay dagaalamaan ayaa lagu qiyaasay 41 milyan oo qof halka kuwa dagaal gali kara ee haatan u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ayaa gaaraya inta u dhaxaysa 162 ilaa 300 oo askari. militariga dalka Itoobiya ayaa GFB uu ku soo wariyay inuu haysto 400 oo taangiyada dagaalka ah, 114 oo ah baabuurta gaashaaman ee dalkaasi, 67 gantaalaha dhulka lagu rakibo ee artilleriga loo yaqaano, iyo 183 oo ah madaafiicda wax duqeeya. ciidamada cirka ee Itoobiya waxaa la sheegayaa inay yihiin kuwa awoodooda ay badan tahay marka loo eego kuwa Geeska Afrika, waxaana dhowaan ciidankooda ay ku xoojiyeen hanaanka gantaalaha difaaca cirka oo ay ka soo iibsadeen dalka Faransiiska. diyaaradda dagaalka ee Itoobiya ayaa lagu qiyaasay 24 diyaaradood oo ah kuwa miiga loo yaqaano, 9 diyaaradood oo ah kuwa xamuulka qaada, 20 diyaaradood oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca ee helikobtarka, iyo 8 noocyada oo kuwa wax duqeeya ah. Itoobiya ma lahan wax ciidan bad ah maadaama aysan lahayn bad. qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya ayaa sanadkii hore ku soo warantay in dowladda Faransiiska ay Itoobiya ka caawinayso dib u dhiska ciidanka badda oo la kala diray sanadkii 1991 kadib markii Eritrea ay madax banaanaatay Itoobiya halkaasni oo ay saldhig u ahayd ciidanka badda ee Itoobiya. inkastoo dowladda Itoobiya aysan si rasmi ah u shaacin halka uu noqonayo saldhigga ciidamadooda badda, haddana sanadihii la soo dhaafay waxaa jiray warar sheegaya in saldhigga looga dhigi doono dalalka Eritrea, Djibouti ama Suudaan, iyadoo dadka qaarna ay hadal hayeen Soomaaliya. wargeyska oo soo xiganaya ila dowladda ayaa sheegay in Itoobiya ay go'aansatay in saldhig ciidanka badda laga dhiso dalka Djibouti. sida uu wargeysku qoray, arintani waxaa laga hadlay kulankii u dambeeyay ee uu Abiy Ahmed ku tagay dalka Djibouti halkaas uu kula kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele.
hase yeeshee wararkaasi waxaa beeniyey safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Itoobiya Maxamed Idris Faarax oo yiri warkaas waa war jaraa'idada Itoobiya dhex socda kuwaas uu sheegaya in ciidanka badda ee Itoobiya ay saldhig ku yeelanayaan Jabuuti warkaasi ma ahan war rasmi ah ayuu yiri Maxamed Idris Faarax ayaa intaasi ku daray ma hayno wax heshiis ah oo labada dowladood ay isla garteen haddii ay noqonayso in heshiis laga gaara wuxuu noqonayaa heshiis saddex geesood ah oo dhexmara Faransiiska, Jabuuti iyo Itoobiya